بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب تميشان يقدر يشنيسا فيديو عن داونيسا أديت بعيني سلامية مقعد عبد القادر سعيد جامع ما أنتو عن كهذا ليا إن شاء الله سيد الله قرأ بوق جامع ده خاصة إن شاء الله فاست بروبوس لسكا أو قبلها بدونا إن شاء الله chapter 1 إن شاء الله حلقة waxaan ugu talagalay ardayda jaamacadaha Soomaaliyeed ee jaamacadaha dibadda ee dalka badhigta inay ka faa'iideystaan oo ay buugtooda jaamacadaha ay ka saacido إن شاء الله waxaan rajaynayaa marka aad dhageysatid videogan inuu noqon doono mid إن شاء الله ku anfici doona oo aqoontaada qaybta research-kana kor u sii qaadi doona إن شاء الله anytime oo aad u baahataan inaad leena caawiyo lambarkayga emailkayga waxa halkaas uu ku qoran yihiin insha Allah isla soo xiriiri kareena haddaan u gudo galno casharkeena first chapter-ka annaga oo aan si straight forward u galayna first one introduction-ku waxa uu ka hadlaa guud ahaan waxa wax ka qoraysid tusaalahaan oo kale in uu mataqana background study-ga aad ciwaanka aad baaraysid background-kiisa inuu ka hadlo iyo inuu ka hadlo problem statement-ga study-gaaga limitations-ka calqaladaha ku qabsanaya intaas uu isagu xooga saaraa background study-gu waa dhumucda research-ka aad sameynaysid waxa ay ka hadashaa ciwaankaaga wixii la xiriira oo hore looga hadlay xoogan waxay saartaa 10kii class-tii 10 years-ka ama 10kii sano u dambeeyay ciwaanka aad wax ka qoraysid dadka wax ka qoray also waxa ay xooga saartaa in aad cilmi baaruhu ama researcher-ka ama ardayga wax qoraya uu ka hadlo problemka uu ka hadlayo sida uu dunida uga jiro sida uu qaarad ahaan uga jiro iyo sida uu gobol ahaan uga jiro tusaalahaan kale waxa problem ka jira Soomaaliland oo kale wax ka qoraysa waa inaad marka horeysa sida adduunka uga jiro problemka ka soo hadasha iyo sida uu qaarad ahaan uga jiro iyo sida uu gobol ahaan uga jiro markaas waa difaacashada ugu wanaagsan oo aad problemkaaga ama buugaaga ku difaacanaysid haddaad buugaaga aad problemkiisa aadan difaacan ma noqon karo doono buugaagu miska siisa maxaa yeelay problemkaas wax jiraba maaha haddaan ka hadalno dabeecadaha uu leeyahay background wanaagsan oo aan ugu talagalay ardayda inay helaan maadaama aan mar walba isla joogin inay benchmark wax la yiraahdo ama ay saadaaliyaan background-koodu inuu mid wanaagsan yahay inaan u soo bandhigay saddex waxyaalood ay ku qiimeyn karaan ama miisaan ku saari karaan inuu background-koodu yahay background wanaagsan maxaa yeelay tusaalahaan kale markuu supervisor-ka uu ku qiimeynayo ama buugaaga difaacanaysid waa inaad garan karaysaa meelaha lagu qabsan karayo kale ardayda marka waxaan u soo diyaariyay inay helaan benchmark tusaalahaan kale haddii saddexda waxyaalood laga waayo background study-gaaga means ma noqon doono mid success ama mid laga aqbalo tusaalahaan kale hadduusan mid brief ahayn mid cad hadduusan ahayn specific problem uusan taarikh gadgarayn ma noqonayo mid success tusaalahaan kale hadduusan ahayn mid lagu qoray English plain oo English standard oo straight forward ahna isaguna waa ma noqon doono haddana waa in researcher-ku qofka cilmi baaraha uu ka run sheega problemka uu sheegayo xilliga uu joogo meesha uu marayo iyo sida uu isagu u daraasaynayo xiriirka ay leeyihiin problem statement hadduusan jirin research study ma jirayo ardaygu waa inuusan problem statement-gu waa inuu yahay mid very clear tusaale ahaan problem statement-gu researcher-ku iyo cilmi baaruhu waxa uu soo bandhigayaa waxa maskaxdiisa ka guuxaya oo problemkaasa waxa uu raadinayaa wixii hore looga yiri kadibna waxa uu qiimeynayaa problemkanu inuu yahay mid understandable ah oo la isla fahmi karayo
marka aan sameynayno problem research problem and problem statement markaan sameynayno ardaygu uu sameynayo waa inuu qaadaa 4 tilaabo. First one waa inuu ardaygu daraaseeyaa xaaladda guud ee problemkan. Number 2 ardaygu waa inuu raadiyaa nature-ka problemkan. haddaadan garanayn nature-ka problemka aad wax ka qoraysid means ma noqonaysid research-kaagu mid accurate ah. ardaygu waa inuu tilaabada kale uu qaadayo waxa weeye waa inuu raadiyaa wixii hore ciwaanka looga yiri. hadduusan jirin ciwaankaas waxa hore looga yiri ciwaankaas ma noqon doono mid aad ku najaxdid. number 4 ardaygu waa inuu develop gareeyaa area-diisu waa inuu la discuss gareeyaa dadka aqoonta u leh. tusaale ahaan oo kale cilmiga dhaqaalaha wax ka raadinaysaa waa inaad dadka dhaqaalayahanka oo cilmiga yaqaan waa inaad u bandhigtaa waa tiraahdaa problemkan baa wax raba inaan wax ka raadiyo aragtidiina igu biiriya. waxaa jira dabeecado wanaagsan uu leeyahay research problemka wanaagsan. tusaale ahaan oo kale markaa problem raadisid problemkaasu qodobka koowaad aqoonta dunida wax ku soo siyaadinaya. tusaale ahaan oo kale waxaad ka hadashay saameynta ay abaaruhu ku leeyihiin wadanka. aqoonta aad wax ka hadashay markaa buugaaga dhammaysid waxa ay aqoontaas wax ku siyaadinaysaa aqoonta loo leeyahay dhanka abaaraha. number 2 problemkaagu waxa uu sii keenayaa in wax laga qoro problemo kale. number 3 problemkaagu wuxuu noqonayaa problem researchable wax laga qori karo. problemku waa inuu yahay mid wax laga qori karo. ama tusaale ahaan oo kale data analyzing toolsku waa inuu yahay problem marka la soo raadiyo collectionkiisa aad soo dhameysay datada mid la analyze gareyn karo. hadduusan noqon karin problemkaagu mid data analyzing toolska oo SPSS ko kale aan lagu analyze gareyn karin ma noqonayo research problem wanaagsan. problemkaagu waa inuu yahay problem suitable oo wax macquul ah. problemkaagu waa inuu yahay problem ethical wanaagsan bulsho ahaan wanaagsan oo bulshada iyo dhaqanka iyo diintaba dhiirigelinaya. laakiin hadduu yahay problem anti ku ah dhaqanka iyo ethicska ma noqon karo problem wanaagsan. problemkaagu waa inuu yahay mid data analyzing toolska lagu analyze gareyn karayo. problemkaagu waa inuu yahay mid clear oo loo qaatayna. problemku waa inuu abuuri karaa questions badan waa inay ka soo ifbici karayaan. problemku waa inuu xiriir la leeyahay academic discipline-ka sida tusaale ahaan psychology oo kale waa inaad cilmiga wax ka raadinaysid ay xiriir la leeyihiin cilmiga. tusaale ahaan waxbarashada kale sayniska kale caafimaadka kale cilmiga aad wax ka raadinaysid waa inuu base ku leeyahay hore wax looga qoray oo research literature waa inuu leeyahay. hadduusan lahayn research literature ma noqon karo good research. meesha waxaan kaga hadlaynaa muhiimadda ay leedahay objective of the study. objective-ku waxa waaye muhiimadda aad ka leedahay research-kaaga marka aad dhammaysid meesha aad rabtid inaad gaaraysid problem baa rabtaa inaad wax ka qortid buugga markaad dhammaysid maxaa rabtaa inaad gaadhid. tusaalahan kale waxaa ka qoraysay saameynta abaaruhu ay ku leeyihiin waxbarashada. waxaa qoranaysaa 3 hadaf aad rabtid marka aad dhammaysid inaad gaadhid. muhiimadda ay leedahay objective-ku waxa waaye first one meelaha laga go'aan gaaro weeye ee dadka aad research-kaagu sida uu noqon doono. tusaalahan kale dadka research methodology markaa sameynaysid respondents-ka aad dadka aad wareysanaysid data collection toolskaagu sida uu noqonayo. also waxa ay muhiimad u leedahay in mataqaana ay saameynayso dhammaan data analyzing-taaga. waxaa jira waxa la yiraahdo report writing oo ardaygu markuu buugga qorayo oo mar walba supervisorkiisa uu gudbinayo meesha ay wax u marayaan. quality-ga good objective wuxuu leeyahay qualities-kiisana waxa lagu cabiraa oo miisaan lagu saaraa smart. erayga smartna waa inay isla fahmayno oo ah eray 5 eray oo la soo gaabiyay oo erayga uu yahay specific, measurable, achievable, realistic iyo time.
marka hadduusan objectivekaagu uusan lahayn shanta waxyaalo ku salaysnayn miinis ma noqon karo objective wanaagsan. research questionsku waxa ay ka yimaadaan objectivekaaga oo objectivekaaga waa su'aal u bedelatay oo aad isweydiinaysid sida aad ku gaari karaysid. research questionska wanaagsan dabacadaha lagu garanayo oo ardaygu uu ku fahmayo research questionskiisu inay yihiin kuwa wanaagsan afarta waxyaalood baa kamid ah. research su'aasha isweydiinaysid waana ogtaa meesha ay ku socoto. number 2 su'aasha isweydiinaysid waa inay tahay mid laga jawaabi karo. su'aasha aad isweydiinaysid waa inay tahay mid qof walba uu fahmi karayo. su'aasha isweydiinaysid waa inaysan lahayn sub-questions. ardayda hadda anigu waxaa jira arday badan oo aan buugtooda supervisor aan ka ahay qaybtood waxa ay sameynayaan inay hal su'aal sub-questions badan ay ka sameynayaan, taas waa mamnuuc waaye. waxaa jira waxa la yiraahdo researchka markaa qoraysid research hypothesis. research hypothesis waxa waaye waa inta aadan bilaabin researchka waa waxaad qiimeynaysaa researchkaagu sida uu noqon doono. laba waxyaalood buuna u waaweyn waa alternative hypothesis iyo non hypothesis. waxa ay xoog saartaa waa ciwaankaaga DV-ga AV-ga xiriirka ay leeyihiin bay fiirisaa. haddii DV-ga iyo AV-gu xiriir leeyihiin alternative hypothesis waaye, haddaysan xiriir lahaynna waa null hypothesis waaye. marka bahasha waa research hypothesisku waa meelaha researchkaaga gaadgarayn karaya inuu yahay research wanaagsan. tusaalahaan kale example the effect of the on education. haddii labada variable oo effect of the road iyo educationka labada variable haddii xiriir leeyihiin waa alternative hypothesis, haddaysan lahayn waa null alternative hypothesis. tusaale waxaa jira waxa la yiraahdo rationale of the study. rationale waxa waaye study-ga aad qoraysid chapterka wax ka qoraysid inuu yahay chapter wax laga qori karayo oo aqliyan uu yahay wax laga diyaarin karayo. meeshaasna waxa ku cadeynaysaa ama ku difaacinaysaa inuu yahay cilmiga wax laga qori karayo adiga oo fiirinaya dadka hore wax uga qoray, adiga oo fiirinaya researcherskii, adiga oo fiirinaya research methodology-ga isticmaalaysid. waxaa jiraya waxa la yiraahdo scope of the study. scope-ka meesha inta uu leeyahay baaxad leeyahay study-gaaga waa inaad ku cadeysaa chapter 3. tusaalahaan kale waa inaad scope of the location waa inaad tilmaamtaa meesha wax ku qoraysid. scope by content-ga aad variables-kaaga adiga oo fiirinaya independent variable miya dependent variable-kaaga indicators-ka adiga oo cadeynaya, adiga oo sameynaya time frame-waaga inta aad wax ku qoraysid inka uu qaadanayo, adiga oo sameynaya scope by research methodology-ga aad sameynaysid adiga oo sameynaya. meeshan waxa lagu soo bandhigaa problem and limitation of the study. waxa ku soo bandhigaysaa caqabadaha ku qabsaday mar inta aad ku guda jirtay researchkaaga. assumption of the study waxa lagu dadka aqoonta u leh fields-ka aad wax ka qortay baa waxay cadeynayaan in uu yahay researchkaanu mid true oo aad si fiican aad u jiro in barnaamijka wax laga qoro. waxaa jira waxa la yiraahdo conceptual framework. conceptual framework in chapter 1 marka aan joogno waa mid muhiimad leh. tusaale ahaan oo kale waxa aad soo diyaarinaysaa macnaha guud ee cilmiga aad diyaarinaysid adiga oo sameynaya framework ku cadeynaya. insha Allah chapters baa ku cadeynaysaa, pictures baa ku cadeynaysaa adiga oo pictureskaas ku soo bandhigaya cilmiga aad diyaarinaysid inta uu xambaarsan yahay, waxaana isku xiraysaa DV-ga iyo AV-ga. marka insha Allah hadda maanta waxaan ka hadlaynaa chapter 1. insha Allah waxaan xigi doonaa chapter 2. waxaan rajaynayaa in ardaydu mataqaana arday walba uu nala soo xiriiro uuna lambarkayguna waa ka emailkayguna waa ka. wabillahi tawfiiq. aad iyo aad baan idin salaamayaa. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.